kulanti wanaagsan asxaabay meel kastaad joogtaan kusoo dhawaada Danger Show. Qofkaanan hore u maqal ama aan la socon, Danger Show waa barnaamij aan uga hadalno arrimo badan oo dhammaantood ku saabsan kobcinta iyo baraarujinta wacyiga bulshada. Barnaamijka isagoo maqal ah waxaa laga dhagaystaa raadiyaha Danger oo xaruntiisa tahay dalka Mareykanka. Waxaan maanta jeclahay inaan uga hadalno qayb muhiim ah, runtii arrin aad iyo aad na saamaysay, taasoo ah arrinta dhalinyarada. Waxaan ognahay in dhalinyaro badan la kulmaan dhibaatooyin ka mid tahay dil, xabsi iyo tacadiyooyin kaloo fara badan, kuwaasoo muddo dheer soo socday, bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha ku noolna ee aad u saamaysay arrintan. Dalka Canada oo ka mid ah meelaha dhibaatooyinkaas ay ka jiraan, waxaa muddooyinkii dambe laga dareemayay xoogaa waxyaro isbeddel ah, markii shirar badan laga yeeshay oo waalidiin badan iyo waxgaradkii ay ka kulmeen ay iska kaashadeen arrintan. Haddaba waxaa barnaamijkeena maanta marti inoogu ah Shamso Ibraahin Boliis, oo ah hooyo Soomaaliyeed oo degan dalka Canada, gaar ahaan Toronto, isla markaana ah qof u dhaqaaqda howlaha bulshada, gaar ahaan wax ka qabadka dhibaatooyinka soo food saara dhalinyarada. Waan ku faraxsanahay inaa maanta nagala soo qayb gashay. Ilaahay idinkiis waxaan jeclahay inaan kugu soo dhaweeyo marka barnaamijkeenan Danger Show si aan kaaga wareysano howlaha badan aad samaysid oo ku saabsan adeega bulshada, gaar ahaan dhalinyarada oo aad la shaqaysid ilaa ay muddana kusoo jirtay howshooda. Marka kusoo dhawow barnaamijkeena, waxaana igu bilaabaysaa ilaahay idinkiis howshan aad kusoo jirtay ilaa ay muddada dheer ee ku saabsan ubadka ama dhalinyarada caruurta Soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan magaalada Toronto iyo gobolka Ontario, intaba caruurta Soomaaliyeed oo dhibaatooyinka faraha badan, hadday noqoto dil, hadday noqoto xiritaan, hadday noqoto maaragtay waxyaabo badan oo adiga la soo gudboonaada caruurta oo ku dhacaa jira oo badan. Marka howlahaas inaad u istaagtay waa la socdaa, howlahaas inaad ilaa muddo dheer kusoo jirtay. Marka fadlan xoogaa nooga faahfaahi ilaa iyo intii aad kusoo jirtay iyo intii howl oo aad u soo joogtay oo dhacay ilaa iyo muddooyinkaas. aad iyo aad u mahadsan tahay bilan. Danger oo dhan waa salaamayaa. aad ugu faraxsanahay miidiidan Soomaalida ah, afka Soomaaliyeed ku baxayo meel walbana lagala xiriirayo, laga dhegeysanayo. run ahaantii programkan oo hadda ilmaha badbaadintooda ilaaha wax badbaadshe, waxaan soo bilownay muddo dheer, dhowr iyo 10 sano hadda, almost 10 years waa ku jirnaa, almost 8 sano something. waxaana keenay bilowgeeda markii caruur badanna looga dila meeshaan. aniga especially waxaan ahaa hooyada ugu horreysay oo wiilkeeda lagu dilo wadankan oo Soomaali ah, dalka Soomaaliya. wiilkeyga lagu dilay 18 years oo ahaa, high schoolkiisa ma dhammaysan. wuxuu ku jiray waqti oo break ah, ku jiray 5 maalmood oo March break ayuu ku jiray. marka asiga dhalinyaro kale maalintii ugu dambeysay March break goob ahayd Friday-da, Saturday iyo Sunday ee off ahaan lahayn, Monday-na iskuulka lagu noqon lahaa. so xaafadooda iska joogeen, dhalinyaro kale asiga ahaayeen, meel isaga sheekeysanayeen. nin baa u yimid, xabadoo la dhacay. 2 nin ay ahaayeen, midna fartu ku tilmaamay, midna kaano. marka waxay ahayd oo masiibo oo community markii ugu horreysay oo lala qaracmayo, lala maraaro dilaacayo. ninka oo wiilkeyga dilanaya markaas ajaanib u ahaa, nin Jamaican u ahaa. marka wax community-ga dhan ay shock ka qaadaanay ahayd. waa macnaha meesha naga xabadan ka imaanay, marka xabadaa wax naga dishay waxay nala ahayd wax maskaxda ka weyn. anyway, waxaa dhacday marka gadaasheeya waxaa dhacday in ilmo badan la sii dilo, inay ilmo badan dhintaan, inay ilmihii ayagana markood difaac galaan. in waxaa dhacday kuwo badan marxaladaha way sii bebedelayeen, in kuwo kale jeelka lagu guro, in maaragtay oo kuwana ay maaragtay dhaawac siin yihiin, sariiraha yaalaan. intaas waxaa badan ku dhacay oo wax isaga imaanaya aysan jirin. waan duugeynaa,
waa isku tacsiyeynayna annaga as a community waa la isku tacsiyeynaa waa la duugaa waa la kala tegaa war maxay ahayd sababtii iyo maxay waxaan u dhaceen iyo bal aan ka daba tagnaya nagu soconine waa la waayay warkeeda iskagama aanaan imaan as a community marka adiga waxaa dhibaatada ugu weyn horta hore familiga dhanay ku wada dhacdaayo hooya ugu horeyso horta hore qofka maaragtay moral iyo mentally iyo physicallyba uu xanuunsanaayo haddana odayga waa ka mid yahay ilmihii wixii walaalo ahaa oo cunugaas la dilay la dhashay ama la dhaawacay way kala ayaga dhan waxay noqonayaan traumatites trauma wada gelayso way kala cararayaan marka reerkii oo dhan oo dhisnaayo taagnaa waxaa arkaysaa inuu maaragtay hawada ka baxo ooba kala daataybo meesha hadday hooyadii ka bukaato ilmihii iyo odagiina waa isdabagelayaan waxaana geeridana waa geerida xaq waaye waa la wada dhimanaa qof kasta wuu ogyahay owlaadan ilaaha dad siiye ilaahayna wuu naqsanaa waqtiguu rabo laakiin waa masiiba haddana waa culus tahay marka adoo waalida oo cunugaada kaa hormar waxaa u jiranaysaa haddana waddankaada ma joogto xataa wax ku helbagarayni karo mujtamacaada iyo waddankaada iyo ummadaada iyo markaa ku dhex jirtid waxbaa there is something laakiin wax weynaa kaa maqan markaa qurbo joogtid oo qurbaha kugu qabsato anyway hooyooyin badanaa noqonay marka waxaan dhahnay bal maalin walba qof walbaba goonigiis ha u ooyo ha u baroorto ha u baabao reerkan ha baaba'aan kuwaas ha baaba'aan waxyaa marka waxaan dhahnay impossible waan isaga imaanay anagoo group hooyooyin oo victim wada wax laga dilay iyo wax laga dhaawacay wax ka xiran balsaan aan horta hore face garayna intee wax nooga yimaadeen bal aan iswareysana annaga bal aan annaga horta hore is ogaano iska warqabno and then aan aniga ishiilgarayna bal horta xanuunkii aan iska traumadii yaanaan isaga ordin waayo qofka wuxuu noqonaa markii nabarkaasoo kale uu ku dhaco qof isolation uu galaa wuu aruura asaga dhan ummadda dhan waa ka dhex baxaa wax oo mucjiso waaye laakiin waa geerida dhibkeeday ka mid tahay xataa aniga waa soo jiraday trauma badanaan soo maray depressionaan qaaday waxa dhan farxaddii dhan way tagtay waxaan dhihi jiray war dadka maxay la qoslaan qofka iska faraxsan waxaan dhahaa qofkaan soo u farxaa xanuunka igu jiro waaye iyo nabarkii yahay waxaan leeyahay dadka way ku fiirinooyaan miyaa sida qof waxaleeyo kaleeto ama everybody adigu ku fiirinooyaan qof ii naxariisan kara xataa ma arki kari waxaan leeyahay waaye nabar ay qabanayo so maskiin oo kale si qof daciif oo kale qof ma aragti aa noqonaysaa marka waa wax maskaxda kaala dagaalamayo aniga waddankan dhan waan ka cararay soomaaliyan tegay quraan badan waa la isaaray daaweyn waa qaatay hurdo la-aan dhibaato marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waddankaygaa u noqday dhibaatooyin badan waa soo arkay alxamdulilah waa isu soo hiilgaray maasha allah wiilkaagii curadka miyuu ahaa ma dhexduu ku jiray ma kii yaraanku ahaa may aniga ilaahay wuxuu i siistay ilaahigoodaa leeyahay 3 gabdhood iyo 3 wiil marka wiilashoo curad uu ahaa gabdhaha ii weynaa gabdhaha 3 ahaa igaa waa weynaada wiilashana asaa u weynaa curadka wiilasheedu ahaa labaa ka yareed marka asagana 18 sano jiray labada ka yarna midna 14 jiro ahaa midna 12 jiro ahaa so alxamdulilah marka waan badanay nabarkii wuu batay dadkii markii dambe waxaan gaarnay ilmaheen dhexdooda inay hadda ilaa hadda aan maraynaabo in communityaashii kaloo dhan ay naga baxaan oo annaga ilmaheena dhexdooda hubkii la isugu dhiibo dhibaatadii xaafad xaafad iyo waxaanaan shaqo ku lahayn marka alxamdulilah group markaan isku imaanay hooyooyinkii aan si fiicanaana loo caawinay waxaan u imaanay mideynta oo maaragtay ninka madaxda maxamed mahad cali yuusuf oo nasiiyo waxaan dhahna bal meelaan isugu imaano aan ku sheekaysano aan isku tiiraanyo bixino aan helno bal meel annaga naftirkeena oo taraamada aan isaga kaashano marka position fiicanuu nasiiyey aroortii aan isugu imaan jirnay waa isla quraacan jirnay hooyooyinka victimka oo dhan iyo hooyooyinka kaloona saborta garaynayo oo dhan meeshaasaan kasoo saarnay inaan noqono rag tashaday waxay toli karaan cirtaa ka labiyey marka annagana waxaan dhahnay
dumar tashadaan nahay aan tashano saa isaga qaban lahayn dowladdan iyo systemkan iyo dadkan ilmaheena hubka gacmaha u gelinayo artay isku baabi'inaya ama ilmaheeniyo high schoolba ka bixi karinba something wrong ahaa jiro sababtay taa cunugii high schoolba markuu gaaro balaaya u fadhido cunugii iskuulkii u diidaa cunugii banaanku galaa cunugii iyo maxaa dhahaa opportunity la'aan iyo hubkii oo la ogeen meelow ka imaanaya marka arrintaasaan bilownay shaqadaas xoogaan usoo qabanay dowladda saddexdeeda qayboodaan kala shaqaynay booliiska waxaan kala soo saxiixanaa dhahna marka hore bal hortore booliiska aan iska dhicino sababto ay tahay daba badan aan ugu karkaraayo oo ay ka mid tahay dhanka booliiska oo naxaraas garaynayo guryaha iyo ilmahaba dariiqyada xataa ku qabsanaya dhanka oo guryaha oo housingkii low income intaan noqonay housingkii aan wada tagnay oo housingkiina ay wada joogaan maaragtay meesha laga wada ugaartaba ay tahay iskuulaadkii oo ilmihii lagu soo bilaabayo ayagoo yarbo in lasoo bahdilo moral iyo mentally ya xataa drugski cunuga high schoolka markuu gaaro loogu geynayo so waxyaalo badan situationo badanaa communitygeena haysato weli ilaa hadda aanan ka kicin waa sax marka aan ku wareyse goorta aad bilowdeen la shaqaynta ama inta aan gadaal ugu noqdo goorta aad bilowdeen arrintan baahi weyn inay jirto loona baahan yahay in loo wada istaago hooyooyinka bulshada dhinacyadeeda inay iska kaalmaystaan hay-adaha magaalada ka jira sida midaayintoo kale iyo inaad iska wada kaashatiin arrintan oo aad fahamteen inay arrin culus oo in loo istaagay ay tahay goormay ahayd ma sanadyadii lasoo dhaafay sanadkii waqtigaas aad bilowdeen 2014kii 2014 aan isugu imaanay hortoor markii carruur badan ee la dilay oo aad fahamteen markii waxay nagu socdeen oo aan aragnaba inay nagu socdaan oo aan ilmihii duugayno maalin waxaan aragnay 4 cunug aan dugnay subxaanallah oo weliba oo Edmonton ay ka socoto Toronto ay ka socoto maalin waxaa jirta intan 2 aan ku dugnay Edmonton aan 2 ku dugnay labada dhinac labada province la iska garaaca waxaa u duugi jirna asbuuc kasta maxay habeen ilaahay keeno ama cunugaa noo dhaawacnaa ama cunugaa naga dhimanaya every night xaafadaasaa lagu duulaa maqle xaafadaas laba midaa dhinta midaa dhaawacma xaafadaas midaa dhinta saddexaa la xiray jeel ayagaa wax dilay ayagaa la dilay maaragti wax oo aanba la xisaabin karin waxaan la xisaabin karin ay noqotay markaasaan dhani bal aan isaga imaanay maxaa waxa halaysan waxaan ogaanay waxa halaysan horta booliiska first step waa ka fariisan waxaan dhahna booliiskan marka booliiskii waa nimankii nabadgelyada iyo maaragtay loogu tagayo oo ilaalinayo marka sidee loola maaragtay diilgaraynaa sidee loola shaqaynaa sidee loo waxaan fikirnay in aan collaboration la sameyno inaan partnership inaan bal horta u tagno miis la fariisano boorkooda booliiska ma aha boorka marka waan baxnay anagoo 200 oo hooyo ah waxaan tagnay cityga meesha ay degan yihiin xafiiskooda weynaan tagnay maxaa la dhahaa college college ay degan yihiin deputation wax la dhahayaan sameynay banaanbaxa oo kaleeto meeshaan fariisanay ma baxaynaa dhahan anaga dhibkaasaan haysto dowladdiina wax noo jeeda malaha communitygan oo la denied gareey waxyaalo badanaa nalagu soo denied gareey markii horeba sharci siintaa nalagu soo denied gareey 10 sano qofka markuu joogo kabacdi uu sharci helay oo aan u lahayn xaquuq uu iskuul ku aado xaquuq uu ku shaqaysto no rights at all marka anagoo taas ku jirnay oo immigrationka noogu yimid haddana tana noogu darsoontay marka waa u sheeg waa banaan baxnay dhowr jeeran deputation sameynay markaas waxay go'aansadeen inay MOU nala saxiixdaan ee dhahaan waa in lala shaqeeyaa hooyooyinkan boorka iyo mideynta wada saxiixday anaga on our behalf hooyooyinka haddana mideynta ayaa maaragtay hoos imaanay ayagaa because institutiona lagaa rabaa dad iska socda dowlad maqaabisho marka saasaan horta hore ku bilownay
qoladaas MOU aan la saxiixana waxaan dhahnay bal horta iskarta guryaha soo jabsanayso waagi hore guryahana lagu soo jabsan jiray habeenbarkiyaa la jabsanaa guri habeenbarkiyaa lagu soo dhacaa ilmahaadiyo yar yar oy waxaan ku dhahay la wada jijiifo adigoo iska qaawina banaanka lagu dhigaa iyo ilmahaadi dhaxantaana aad aragtay iskar xoogooda noo sheeganaysa swap team la dhahay aan ugu soo duuli jirin 2013 Dixon 50 guriyay jabsadeen 51 51 cunugna way xireen wax daba galay oo hataa community istaagta hataa ma lahayn bas qof kasta waa cabsaday qof kasta wuxuu is leeyahay communityga dhanaa waxaa lagu riday argagaxsaa lagu riday صح marka alxamdulilah waa ka soo shaqaynay MOU-geena nala soo saxiixdeen 6 division oo weliba westiga u badan north westiga 6 divisionaa la shaqaynaynay bil kasta waa isla fariisanaynay waxaan u sheegaynaa waxa xaafadda hadday wax ka dhaceen ayagana waynu raboor garaynaa waynoo sheegayaan xaafadda xali saasaa ka dhacday macnaha inay ka warqabaan safetyada ilmahena ogaan markaas ilmihii iskoolaan u diri weynay cunugii jaamacad aadaya jaamacaddu ka imaan waaye sabweyga uu soo gudbi waaye maxaa dhihi jiray shaqay aadi waayeen ciyaalkii xaafadaa la isku dilaa meesha cabsi weynaa dhacday cabsi aan laga sheekeyn karin ilaa hadda la joogo qaaraan socon karino markay socdaan garbahood xataa ayagoo baaburooda xataa geesooda fiirinayo ilma inta ku dhashay oo ku koray maxaa marka waxyaabaha aad samayseen oo hadda la dhihi karo ilaa iyo waagaas aad u istaagteen 2014 ilaa iyo hadda waxaa tiri booliiska la shaqayntiisa waxaan aragnay inay horta number 1 stepka ugu horeeya inay iyada tahay booliiska waa u tagteen waa u sheegteen waa u cabateen wixii dhib ah oo dhan waa u sheegteen marka maxaa waaye kaalinta MOU idinla saxiixdeen maxaa marka ku faahfaahsan meeshaas wada shaqayntiina marka qaabkee noqonaysaa ama qaabkee ilaa ay hadda u soo socotay waa waxyaalo badanaa saddex core elements aan iskala shaqaynay inaa horta transparency dhacdo oo maaragtay aan waxba la kala qarsanin iyo in maaragtay trust building because annaga Soomaali haddaan nahay askartii waxba uma sheegayno ma aaminayno ayagana nama aaminayaan ayagana inay noo shaqeeyaan way diideen lacala haddee wax dhacaan ayaga waxayna leeyihiin Soomaalidiina waxba ma soo report garaysi ma soo sheegtiin annagana waxaan leenahay adinka askar ahe ma dhibaatadan ay qabataan marka waxaa trust dhan ma jiro there is no trust askarti waxa waaye hataa haddaa u wacatid oo aad gurigaad ugu wacatid meeshay wax kuu samayn lahaayeen ama qofka ugu wacdid lacala cunugaa aad isleedahay bal kaa edbiyaan ugu waco waaba kaa dilayaan waaba xiraayaan waaba adigiyaa waxaaba ku noqonaysaa guilty aa dareemi waay cunugaad ugu wacda marka trust buildingkaas inaan sameyno iyo inaan transparency anaan waxba la kala qarin anyway waxaan dhahnay shaqada idinkaa iskale annaga isnijmaniino ilmaheena hadaladooda ma idinkay keenayno idinkaa lacag la idinku siiyaa kii maaragtay wax dilayna soo qabta maxkamadeey kii nabad qabayna violence midda ugu weyn haddana waxa waaye violence waxaaba kasii dar hubka yaa noo keena anaga dukaan ma aadno oo inta storeba ku yaalo sida maraykanka oo kale manihi oo hubka laga soo gadan karo so yaa hubka ilmaha u keeno oo guryahooda joogo oo xaafadahooda joogo oo iskoolaadkooda joogo marka way fahmeen way nala shaqeeyeen runtii waxay nagala shaqeeyeen ugu waaweyn haddeer waxa waaye waxaa naga yaraaday violencegii way yaraatay hoose u dhacday tan labaad waxaa kaloo naga sii yaraaday guryihii ay soo jabsan jireen bakaas inaa ogaanay way garteen habeen walba guryaha naloo soo jabsan way naga yareeyeen hadda waxa waaye qofkay rabaan xataa si adaablee albaabka intay ugu soo istaagna haddii markaas keeska uusan weyneyn oo wax danger oo laga wada cabsanaya aysan jirin albaabkaasi kaagala hadlaa awal saas ma samayn jiro ixtiraamaa bilowday marka really waa aragnay in wax aan geengarayno aan succeed garayno aan wax noo macnaha wax faa'iida aan aragnay bas shaqadii waa weli way sii socotaayo ilaa meeshaan rabnay ma aysan gaarin laakiin waa wadnaa adiga is afgarashadii iyo howlahaasoo dhan si fiicanay ma aragtay inoogu dhaceen okay midaas waa dhinacii booliiska waa gartay dhinaca kale jaaliyad Soomaaliyeed ahaan gaar ahaan siiba waalidka
dhibaatooyinkaas soo gaareen kuwa ay soo gaareen iyo kuwa kale oo aynan soo gaarin laakiin iyaga ruuxaddooda walwalku joogga ah sidee uga dhaadhiciseen ama sidee isugu keenteen oo aad arrintan aad uga midowdeen oo aad isku fikrad uga dhaadhiciseen arrintan inay tahay arrin muhiim ah oo annagoo dhan noo wada taallo oo inaan isaga imaano ah sidee marka ugu guulaysateen bulshadeenna waa naqanaay waa kala daadsannahay sidee marka ugu keenay arrintaas wallaahi waxa waaye wax badanaan samaynayo shirar badanaan samayno horta hore wacyigelin badanaan samaynay xanuunkan annaga dhan woona wadahay nambarka hooyo ilmo laga dilay waa bate hal cunug keliimaana waxaan gaarnay labalaba in layska dilo dad baa laba cunug labana ka xiran yihiin midna laga dilay kuwaa laba laga dilay mid ka xiran yahay macnaha hooyo waxaa jirta oo inta ilaahay sii 3 wiil ama 2 wiilashii horta loo soo dhacay aan waxba gacanteeda ku jirin caawo wax laga xiray wax laga dilay wax maaragtay masiibo waay marka arrinta dadka dhan way taabatay communityga dhan way taabatay gaar ahaan hooyooyinka dhan way taabatay hooyooyinka marka shirar badanaan samaynay isku imaan badanaan samaynay wacyigelin badanaan samaynay ilaa hadda waa wadnaa oo ma aanaan joojinin magacaasaan samaysanay dacwada meelaha u tegayna dhan miidiyadaa la soo gelinaya markaan deputationka tagno city tv-ga iyo qolooyinkaas dhanaa soo gelinaya way arkaayeen yaan u dacwoonaynaa marka communitygeena le marka waxa waaye hooyooyinkii dadaalkaasaan horta hore kusoo wada xaraynay hooyadii laga dhintana markaas ama dil markuu dhaco ama markii uu dhaco maaragtay haddii ilaahay ku ron yahay haddii uu dhaco maaragtay tacsi markay dhacdo hooyooyinka ma ka harno waa u tagnaa waa la duugnaa waa hiilgaraynaa maaragtay emotionally waa ilan dhaawici annagaa soo marnay dareemayno hooyadaasayta supportaan siinaa waxaan isku maaragtay aanu u fikirnay inaan mar walbo ama meel walbo oo hooyo dhibaato oga dhacda inaanan ka harin shaqaan ka dhiganay marka ama markii la dhaho cunugaa meeshaas ama iskarti inaan anaga ka hormarno oon anaga noqono emergencyga ugu horreeya ayaga way ogyihiin hadda iskarta iyo dowladdu way ogyihiin first emergency inaan noqono anaga oo meesha anaga ana looga hormarin iskarti u sheegno qoladii oo maaragtay crisis emergency qolada dhahaya jirto qoladii crisis emergencyga mar walba waxay arkaan hooyooyinkan inay kasoo horeeyaan marka waa isku abaabulnay mar walba waa shirnaa maalmo qaarkood miitinaan sameynaa hooyooyinka sabtiga waxaan sameynaa zoom meeting oo communityga dhan aan soo wada gelinaa intii markaas faaruq ahoo dhan zoomkaasaa more easy ee qofkii asoo gurigiisa joogo ayaa wixii soo zaa'iday iyo wixii maaragtay aan xalinay iyo wixii hawshin xanuunkii markaas nahaayo oo aan rabno inaan ka dagaalano iyo aan isku weydaarsanaa communityga waa gartay hooyooyinka ilaa iyo hadda maasha allah meel fiican ay idiin maraysaa waxaa jirta adna aad ogsoon tahay waxaa jira dhaqan oo aan leenahay oo hooyooyinka siiba dadkeenna waalidka sidiisaba ama hooyaha ahaado ama aabbaha ahaado waalidiin waxaa jiraan haddii qof uu ka dhinto ama ubadkooda uu ka dhinto kale ilaahayaa qaatay alxamdulilah ilmahayga waa dhinteen hadda kama daba hadlayno qofka hadduu dhintay waa dhamaatay waxba dambe kama daba qaadanayno tii ilaahayaa dhacday dacwo ma rabno waxba ma rabno intaas ilaahay maaragtay dad dhahayaa jira oo aanan rabin dabagal kale iyo baaritaan iyo maxaa dhacay iyo macnaha waxaas dambe aanan diyaar u ahaynaa jira marka kuwaasoo kale sidee ugu baraarujiseen arrintan inay muhiim tahay oo haddii iyada ay ku dhacday la aamusto inay haddana mid kale imaan karto oo mid kale ay dhici karto marka arrintaas sidee uga daba qaadateen oo arrintaas sidee uga maaragtay dhaadhiciseen waalidiinta qaabkaas u fakaraya oo ma dhaqankaas leh ha way jirtaa waalidka qaarkiis saas u dhahay laakiin waxaa jira waxa waaye qofka haddii qof laga dilo qofkii wax dilay systemkaa laga rabaa justice systemkaa la rabaa so waxaan u qaylinayn waxa anaga justice ba ma helno we don't get justice haddaan Somali community aan nahay aad iyo aad ayuu justicekeena dhankeena uga liitaa Canadaska haddaan nahay ilmahan Canadian waay
ande kii dhinta aniga ma wiilkayga markuu la dilay ninkii dilay waa 2 weeks lagu soo qabtay in 2 weeks meel alaala meeshuu galo waa laga dabagelay nimanka ka shaqeynaya oo detectiveyada ahaa aada ila socodsiin jireen tallaabaday qaadayaan habeen walbaba meeshii ay ugu galaanba way isoo sheegi habeen caawa meeshaasaa lagu sheegay habeennimadaasaa lagu doori jiray haddana markii la xiray hal sano oo xirnaa looyaro waaweyn oo qabsaday ayadoo wixii markhaati ay leedaho camera laga wada arkaayo waxaas waxaa la dhahay camerada markhaati ma gasho ilaa oo victim dad ay joogaan oo markhaati ilaan 5 qofood 6 ahaayeen keygaa dhintay 5 nool marka 5tooda dad kamid a la rabay inay markhaati noqdaan waxa dhana Soomaaliya ahaayeen waaba la iska baqay reeriyaaba baqay markhaati ma noqon war ninka saas uu egyaa ninkana xabadeey saas uu egyaa koofidaasuu watay kabahaasuu watay keliya dhaha wixiina camera qabatay way diideen oo reerihii Soomaaliyeed markaas way diideen because masiibada markaasi kow ahayd marka laakiin systemka waxa waa justice maba ana wuxuu ka soo baxay after 1 year asoo labada farood taagayo victory dhahay oo jeelka ka soo baxay ninkii looma xukumin wiilkeygii sidaa markuu la wada arkay soo victory dhahay oo soo baxay markhaati marka Soomaaliya oo dhan way wada arkeen oo laakiin aan wiilkeyga waa lala socday dadkii la socdayna way dhaawacmeen kulligood way dhaawacmeen 6 ahayd 6daba keegan wuu dhintay 5 kalena way dhaawacantay laakiin markaas marxalad kale jirto waa la iska wada baqaayo waa la kala baqaayo badanaa jirtay haddana dadkii madowgii dhexdeena la aheedo jamaicaani ahayn ama haddana gooni la idin dila aniga xataa waxaan dhahay kaaga woo kaa tagee ku kala yaa sababsanine iska dhaaf miss aniga xataa saasaan dhahay markhaatidii haddii ilmihii cabsadeen waa true because witness maxaa dhihi jiray dadkaaniti inay qofka badbaadiyaan witnesska xataa Canada ma aha sida Mareykanka witness protection waxa la dhahaa jiro laakiin qarash badanaa galaya marka they are not doing for you qof madoobaa taadi marka laakiin alxamdulilah markhaatida hadduu nool yahay markhaati warsa dadkan systemkooda ayaa qaldan sababtay tahay hadday rabaan inay kuu shaqeeyaan nin caddaana haddii la dilo isla caawa waa la keenaa ninkii dilay laba calim is warsanayso isla hadda haddii nin kaloo ajaaniba la dilo sidoo kale laakiin communitygeenaaba la iska arkooda annagana communitygii hore naga horreysa jamaicankii ahayn sidoona kale ahayn ayaga way nooga baxeen hadda annagii waay hadda anigoo su-aalahii kale wax badana ayay dhiman laakiin haddana waqtigaa nagu soo yaraan rabo waxaan rabaa inaan marka ku weydiiyo caruurta ilaa ay hadda maxaad dareemaysaa waa ii sheegtay karaamkii sidii hore ma aha waa yaraaday alxamdulilah waalidiintii dhinacoodii dadaal badanaa samayseen oo aad soo jiideen waalidiintii baraarujin fiicana u samayseen hadda maanta alxamdulilah meel fiicanay maraysaa iyagana way fahmeen dhibka jira iyo in arrintan loo baahan yahay in loo istaago dhinaca ubadka ruuxadooda marka dhalinyaradii maxaa dhaqdhaqaaq oo samaysan dhinaca dhalinyarada sababtoo ah sidaan ognahay jiilka meeshan ku dhashay wadamadan ku dhashay ama ku koray maskax naga duwanay wataan iyo aragti naga duwanay wataan marka sidee iyaga ruuxadooda wax uga dhaadhiciseen iyaga ruuxadooda sidee aad uga hortagteen dhibaatooyinka ku imaan kara wixii dhacay way dhaceen laakiin waxa hadda dhacaya ama futureka ilaahay ayaa yaqaan wixii dhici doona laakiin ka hortagga qaabkee ugu baraarujiseen in arrintan looga hortago dhalinyarada qaybteeda dhalinyaradii wallaahi alxamdulilah waa runtaa saatiri waaye dhalinyarada inta ku dhashay horta hore isku maxaaba mabanihiba isku af iska dhaafe isku fikirad isku maskax waxaan nahay mala dadkan kanadees waaye isla markii discrimination weyna ayagaba haysto ayagoo kanadees ku dhashay oo xaquuq kule wadanka haddana la discriminate garayna because discrimination dadkan weligoodii allahoodii ku jireen ay soo samayn jireen hadda ilmaheena waxay arkeen inaa annaga waalidiinta kacni gaar ahaan hooyooyinkii oo la fadhino dowladdii saddexdeeda maaragtay kala duwan annagoo la fadhino iskartii provincialka maxaa citygii iskartii la fadhino meeyaradii la fadhino ilaa media la isu soo gelina wayna arkaane iskartii la hadlayno dhehen ilmeheena nooga haro iskartana ay dhihiin ilmihiina rabshada ha dhaafaan aan isku hayno way arkeen marka waagii hore wayna diidi jireen waxay dhihi jireen hala hadlina
waa nagu soo harasgarayn jir gaar ahaan aniga waaba igu soo harasgarayn jir hooyo iskarta maa la fadhiisataa hadda maa dadka maad rufyaanaysaa warka maa kala qaadaysaa waxaas ma jiraan iskartana waa iska dhicinaynaa idinkana waa iska keen dhicinaynaa markaas dad walaalaa tihiin meeshaana ku wada korteen ina xabado la isku qaato ama aan naga dhimataan uma anaa imaan inta marka ayagana hadda un way fahmeen even though ayaga waxa waaye dhibaato weynay galeen ayaga naftirkooda waxa waaye mentally caadi uma aha ilmaha trauma weynaa ku dhacday ilmo badanaa hortooda kuwo badanaa lagu hordilay lagu dhaawacay cabsida way ka badan tahay ayaga meesha la raba ma aysa gaarin weli laakiin anaga prevention kuwii wax ku dhaceen waaba ku dhaceen hooyadii laga dhinta waaba laga dhintay hooyadii laga dhaawaco waaba ka dhaawac cunugii dhinta waaba dhinta laakiin kuwa prevention waxaa noogu daran inaa hadda preventionka sameyna waxaa nagu qasbahay waxa waaye kuwa badanaa noo soo korooyo kuwa badanaa noo yimid inuu dhalinyaro badanaa noo soo gasho wadanka dhalinyaro badan kuwa badanaa meesha noogu dhalanoy marka ma joojin karno we have to inaan helno safety waa inaan helnaa nabadgelyo waa in ma aragtay la helaa opportunity waa in dadkii ay kanadees noqdaan ee ummadoodan wax la qaybsan karaan marka that's why ma u joojinayno hadduu ilaah yiraahdo ma ilaah idinkiis marka gabagabadii Shamso maxaa aad rajaynaysaa haddii ilaahay idmo in barnaamijkan uu ka soo baxo hawl badan aad soo qabateen ilaa inta hadda soo socoteen haddana insha Allah hawsha meesha ka sii wadaysaan marka maxaa jeclaan lahaydeen inaad aragtid ama maxaa jeceshahay inaad aad aragtid arrintan inay miraha inay dhasho miraha ee dhalays maxaa is leedahay insha Allah future insha Allah waxaan rajaynaynaa amaba aan jecelnahay biidnillaahi alkariim intaan noolnaa hortood inaan hawsha wadno in aan gaarno in aan helno nabadgelyo aan ku noolaano in ay ilmaheena helaan ubadkeena joogo iyo kuwa dhalan doono ilaa meeshan waa ku tarannay oo xididadeena galay in aanaan noqon dadkii 400 sano la raacdaysanayo kaloo la baaba'sanayo inaanan maaragtay dariiqaas inaanan ku dhicin oo aan iska dhicino dowladdan iyo ummaddan oo maaragtay nala dagaalamayso na discriminate garaynayso aanu gaarno in maaragtay inaan u noolaano xornimo carruurteedana u noolaadaan saasaan rajaynaynaa insha Allah waana ka shaqaynaynaa waana gaaraynaa policyyaal inuu waddankan ka soo baxaan that everybody inuu yahay Canadian oo rightsna leeyahay sax dhinaca waalidiinta Soomaalida oo aan weli si fiican u baraarugsanayn ama arrintan sida loo baahna aanan uga qayb galaynin oo kale ama aanan uga qayb qaadan haddii ubadkooda dhintay ama hadduusan ubad ka dhiman ama haddii dhib soo gaaray hadduusan soo gaarinba waalidiinta Soomaaliyeed iyo xataa waalid wax ku faanan ahayn iyo qof ahba bulshada Soomaaliyeed gabi ahaantood maxaa is leedahay kaalintee is leedahay way ka geysan karaan oo ama arrintan dhinaca ay ka qaadan karaan maxay tahay garab idinka siin karaan idinka waxay naga siin karaan communityga dhan inay unity helaan horta inay wadajir magaceena waxa waaye MCIS macnaha dadka hadday isku tagaan waxay turi karaan marka anaga haddee Soomaali ahaan aan hal far noqono oo aan isku xirnaano oo aan iska warqabno ubadkeena cid la qaadan karta cid la bixin karta male marka bacdamaa inta aan ku wada noolnahay oo dhulkeena iyo ciideeni ay noqotay waa in ummadda Soomaaliyeed oo dhan isaga yimaadaan oo aan hal noqono oo hawshan xanuunkeeda qof uusa gaarin oo Soomaaliya ma jirto guri uusa gelin maanta way yar tahay marka inta uusa gelinna Allah ka hayo intii ku dhacdana Allah ka kacsho laakiin inaan badbaadsano ubadkeena iyo aayaheena dambe ayaan kula dardaarmayaa صح ما شاء الله شمسو إبراهيم بوليس آدي آذا أما سنتها باي سيدو ونأكسن ما عرفتي آد نوغا شاكتي برنامج كأودين يهولها آد سوق قبطين إلها إذن كيس وحن رجينا إنا قولوا في عنك هادن واكا جارتين إن كسي بضن إن شاء الله واكا جاريسان إلها إنا هنو بدبادي عروفتي إلها إذن كيس آدي آذا أما هاي برنامج كان نغلس وقت بشي تدا أصلا ما تنتهي هذه إرادة هذا thank you so much okay سلام waa tahay waxaa intaas noogu eg danjir show qaybtiisan waa ku mahadsantihiin daawashadiina intaan midkiisa kale ku kulmi doonno oo anigoo ah Basro idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo